48 saac ee la soo dhaafay waxaa isbedelay guud ahaan amniga dalka waxaana goorrow shir jiraayad qabtay sarkaalkii labaad oo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo si cad u sheegay inaan loo hoggaansami doonin awaamiirta qaldan ee madaxweyne muddo-xilidkiisii dhamaaday. أنا شغوين وكشغوين هاي قبيل وهذا أوري شغل أنا قبيل كمان راعين. وجنرال محمود كورنتو oo kamid ah taliyaasha ciidamada xoogga dalka ay dib ugu soo laabtay dalkiisa hooyo si uu cadowga argagixisada ee al-shabaab uga difaaco dadkiisa. maanta wuxuu ku dhawaaqay howlgal ka dhan ah hoggaanka madaxweyne Farmaajo ee waqtigiisu dhamaaday. waa in loo istaagaa amniga Muqdisho inaan gacanta kula wareego saacada laga bilaabo. waa inaan la yeelin shalay wixii ka dhacay baarlamaanka 2 sano oo sharci darro ah qof qaadanaysa male 4 sano meesha joogo adkaysan weyn أنا شغوين وكشغوين هاي قبيل وهذا أوري شغل أنا قبيل كمان راعين غالبا دياريين هذه كانوا هذه شيء دمويك الشعبية مدنية قبوة تنقل صغتان أم بتبادلنه مقالة ملحظة وعلى وقتين الصومالية مركب بالبريسي مقالة ملحظة قبل البرسي هذه مقالة ملحظة نوت فعلان لهي ما أنت لبك نقول عاي General Koronto waxaa ka sii horreeyay taliyaha booliska gobolka Banaadir General Saadaq John oo 4 sano la soo dhaafay kamid ahaa saraakiisha sida weyn saameynta ugu lahaa amniga caasimadda Muqdisho. waxaan u baahanahay siyaasad midaysan siyaasiyiinta hadda tihiin inaad wadanka qaranka dantiina ka hormarsan dadka qaranka loo baahan yahay. looma baahna inaad hub isku aragsataan, looma baahna inaad tiraan hebel waa dhintay, hebel waa dhacay, hebel waa inta. aqliga loo baahan yahay. maanta aqliga looga baxaya haddaadan aqli haynin awoodda ciidanka iskale amniga ciidanka iskale mana loo baahna in qalqal la geliyo, mana loo baahna in lagu xadgudbo. dalku wuxuu ku socday ilaa iyo carta doorashaa loo baahan yahay. ninkii la doorto doorasho kala raadso wax xoog ah iyo wax hagardaamaa iyo dib in magaalada difaac looga galo oo daariyada la dumiyo ma dhici karto. waxaan leeyahay mas-uuliyadda qaado ra'iisul wasaare kana soo bax waa ku filan tahay. kuma baahna inaad meel fadhiisato oo wax lagu miiray, waa adiga inaad wax miiraysaa. saraakiisha ciidamada ee diiday awaamiirta qaldan ee Farmaajo laba kaliya maaha, laakiin waxaa jira saraakiil aan warbaahinta hortagin oo xabsiyada ku jira iyo qaar darajadii ciidanka laga rifay. ujeedkuna waa inay diideen inay kursiga ku difaacaan Farmaajo oo hadda ah hogaamiye kooxeed ku fadhiya kursigii uu shalay sida xushmada leh ugu tartamay looguna doortay. marna ma filaysay in Farmaajo noqon doono keligii taliye.